meesha aad joogtiin ayaan idinla joogaynaa garabkiina inaan ka dagaalanaan diyaarunhon xabada ridno maahan inaan gadaal waliba fadhiisano maaha subax wanaagsan seetiin walaalahay waqti rabadaanna waa la joogaa meel qoraxana waa fadhinaa waqtiga waxba idinkuma dheeraynaayo waxaan u malaynayaa waa ka xumahay horta waqtiyo badan inaan isku soo noqnoqonay heeday laakiin noomaysan suurtagelin laakiin mar walba waxaan hubaa adinkana qalbiyada nagala joogteen annagana qalbiyada idin kala joognay aqyaaray dadka halkan saaka fadhiya oo ehelka anna oo qaraabada anna qof saaka duulaana oo guri qof kale leeyahay duulaan ku ah miyaa jirta miyaa kamida qof duulaana oo naf iyo maal dad kale leeyihiin duulaan ku ah miyaa naga mida yaa qof inuu iyo baxo mitir dhul ah oo dad kale leeyihiin qaata raba miyaa naga mida waxa la isku haysto maxay yihiin marka yaa waxa la isku haysto waxa la isku haysto waa nafteenni iyo maalkeenni waxa la isku haysto waa sharafkeenni iyo karaamadeenni waxa la isku haysto waa nolosheenni dalka nalamale dadka nalamale dawlad nooma ahan oo dawladdii ummaddan wakiilka ka aheeday ma ahan heshiis nooguma imaano iyo heshiinay inaan anaga ayagu isu nimaado kuma heshiin waxaan isku darsannay oo isugu keenna darsan oo ayagu waxay leeyihiin waxaan anagu leenahana ma jiraan 14 sano hore u joogeen waxa aan leenahay cunaayeen ma waxay la yimideen ay cunaayeen mid iyo baabuur soo raray inta iyo keensada waro aan wada cunna hal marna yiri ma ku jiriya mid waxaana noo nabadgeliyo waxa uu cunaayo asugu lahay wata ma jiriya walba aan dhimanno geeridu marbay nolosha dhaantaa yaa aan dhimanno geeridu marbay nolosha dhaantaaye waxaan rabaa walaalahayga qaaliga gadaal taleefana idinkaga soo diri mayne meesha aad joogtiin idinla joogaynaa meesha aad joogtiin ayaan idinla joogaynaa garabkiina inaan ka dagaalanaan diyaarunhon xabada ridno maahan inaan gadaal waliba fadhiisano maaha taa waxa aan u yeelaynana waxaan aaminsannahay dagaalka aan ku jirno kii xaqa ahaa oo si diiniyana iyo si dadnimo intaba waajib noogu ah inuu yahay aaminsanna sababtoo ah diinteenna islaamka ayaa waxay noo sheegaysaa naftaada iyo maalkaaga qofku mar duulaan hadduu ku yahay inaad si cado bareer ula dagaalanto waxaan rabaa odayaasha dhaqanka dhalinyarada aqyaarta qiimaha badan ee kala duwan halkaan fadhisa shaki kuma jiriyo daruufo gaar ah oo yar yar way jirayaan waliba waqti rabadaan oo bil cibaada oo wax walba oo xumaana markasta ay xariman yihiin haddana ay waqtigii in la cibaadeysta ay ahayd ay tahay ayay ayagu waxay u socdaan dhiigga muslimiinta inay daadiyaan maalkii ummaddaanu ay laheeday inay si xooga ku qaataan waxa kuwaas ayagana lamida oo ka damiir xun waliba kuwa dadkoodii ku dhex jira ee dadka noocaas haddana maalin walba raba inay ku soo hogaamiyaan dadkoodii iyo deegaankoodii iyo dalkoodii waa damiir laawayaal kale ee diyaar u ah hooyadood iyo aabbahood in la gumaado oo la gumeesto diyaarka u ah balka warrama ilaahay baan idinku dhaariye awda dadnimadii awda soomaalinimadii aawa sharafkii iyo qiimkii iyo karaamadii ay dadkaanu lahaayeen xaggee yaadda awda islaamnimadii yaa waxaan rabaa akhyaartayda qiimaha badan horena waa u soo aragteen muddo dheer ayay halkaan joogeen wixii ay ahaayeenna waa ognahay falalkii guraacnaa iyo xumaanihii ay samaynayeenna waa ognahay dadka iyo habka ay ula dhaqmaayeenna waa ognahay waxaad markhaati ka tihiin qofka dhib galo xitaa in la waayey in la soo booqdo yaa waxaad og tihiin in la waayey xitaa maanta geeridu qofkay gasha tacsiin loogu tago aayad iyo xadiis xaaraantinimeey ilaahay baan idinku dhaariyay xaggay ku yaalliin ma jiraan yaa waxaan xusiistaa waagii aan la dagaalamaynay oo halkaan ay xabaddu ka socotay ayaan meelay ka carareen waxaan ka qaadna buugaag
buug ka mid ahaa marka dusha sare waxaa uga qornaa diinteenna islaamka ma aha wax barabagaana ilaahay baa igu waa soomana diinta islaamka waa inaan isticmaalnaa ciwaanay buugga u tahay diinta islaamka ma lagu dhaqmaa mase waa la isticmaalaa ya feene markhaati ay leedahay ruunulgood guri ku yaalan ka qaadnay buugaagtaas buug ka mid ahuu ahaa macnaheeda waa kafar ay ku gabanayaan oy ummadda ugu soo gabanayaan si ay ugu dhibaateeyaan waxaan u baahanaa marka dadkeennana inaan ka qabanno dalkeennana inaan ka qabanno diinta islaamkana inaan ka qabanno ilaahay baan ugu garab taagantahay allah subxaanahu wa tacaala aan ku xirnaanno cabsidiisa aan ku taagnaanno nimankaa gafuurada duubanna fulannimadooda iyo cabaadkooda waa aragteene wax kasta oo aan kari karno oo qaranka Soomaaliyeed kari kariyana waa idin la garab taagannahay aan iska dhicin aan iska dulqaadno war intaas ma ku midaysannahay raggeena gadaal jira ee anaga maqanna aan wacanno halkaa galab aan idinkugu nimiday heedan u maleynaa wax xusiista laakiin hal eray oo galabtaas oo meesha aan ka qabsado wixii meesha ka socda aniga walina wax xusiista dhamaystir geedku waa dhace ambiska dhaafa soo dhashay laakiin ogaada waxay ka tabar xun yihiin maalintii aan ceyrinay maantay ka tabar xun yihiin aqyaartayda qiimaha badan aan isugu tagno aan gacmaha isqabsanno aan ku dhaqaaqno aan dhamaystirno markaan wayna la siman tahay aad ma fahanteen ilaahay idin karaameeyo waa ku faraxsanahay saaka inaan wajigiina soo istaago inaan hortiina imaad aad iyo aad ugu faraxsanahay allah idin karaameeyo goobo kale iyo waqtiyo kale ayaan kulmi doonaa idinka ilaahay aad baad u mahadsantihiin allah